Anfield uma badna inuu noqdo meeshii maamulaha Jesse Marsch uu dooran lahaa inuu u socdaalo si uu u soo afjaro dhibaatada xun ee Leeds United ay ku jirto. Kadib markii uu la kulmay 8 kulan oo aan wax guul ah uusan gaarin iyo 4 guuldaro oo xiriir ah, tababaraha Mareykanka ayaa waxaa saaran cadaadis weyn iyadoo kooxdiisa ay ku jirto kaalimaha ugu hooseeya oo kaliya 2 kooxood ka hooseeyaan Premier League. Liverpool oo kaalinta 8aad ku jirta ayaa dib u soo kabasho yar ku soo dhamaatay iyada oo sii wada qaab ciyaareedkii xumaa ee ay martida u ahayd kadib markii Nottingham Forest ay Sabtidii la soo dhaafay 1-0 ku garaacday. Laakiin Reds ayaa badisay 3 kulan ee ugu dambeysay ee ay garoonkeeda ku ciyaartay welina wax guul dara ah kalama kulmin Anfield xilli ciyaareedkan. Kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska ku soo dhaweynaysa kooxda Leeds. Waxay bilaabanaysaa ciyaarta 7:45 daqiiqo ee fiidnimo British Summer Time halka Afrikada Bari ay ka bilaaban doonto 9:45 fiidnimo Sabtida caawa 29 Oktoobar. Weeraryahanada Diego Jota kubka, Luis Diaz jilibka iyo Arthur oo boodada ka dhaawacan ayaa muddo dheer ka maqnaanaya Liverpool. Daafaca Joel Matip ayaa ku maqan dhaawac kubka ah halka Naby Keita uusan weli diyaar u ahayn inuu ku soo laabto garoomada. Si kastaba ha ahaatee, Thiago Alcantara ayaa soo laabtay kadib markii uu 2 kulan ku seegay infection dhegta ah. Jordan Henderson ayay u badan tahay inuu diyaar yahay inkastoo uu dhaawac jilibka ah kaga baxay kulankii ay 3-0 kaga badiyeen Ajax. Liverpool ayaa saadaasha shaxdeedu tahay 4-3-3. 11 ciyaaryahan ee ku soo bilaabaneysana waa Alisson goalkeeper, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Firmino, Nunes iyo Salah. Daafaca Leo Hayelde oo xanuun mindhicirada ah ku maqan iyo qadka dhexe Tyler Adams oo dhaawac kubka ah ku maqan ayaa shaki la gelinaya inay u saftaan Leeds. Si la mid ah Joe Gelhardt, Rodrigo iyo Luis Sinisterra kuwaas oo wajihi doona tijaabooyin caafimaad oo soo daahay. Stuart Dallas ayaa muddo dheer ku maqnaa dhaawac boodada ah waxaana sidoo kale maqan Adam Forshaw. Leeds saadaasha shaxdeedu waa 4-2-3-1. 11 ciyaaryahan ee ku soo bilaabanayaan ayaa ah Ilan Meslier goalkeeper, Christensen, Coe, Laurent, Pascal Struij, Matheus Kliich, Roca, Summerfield, Aronson, Harrison iyo Bamford. Liverpool ayaa ah koox u muuqata inay garaaci doonto kooxda Leeds oo aan weli wax guul ah gaarin 5 kulan oo ay marti ahaayeen xilli ciyaareedkan iyaga oo laga badiyay 4 jeer. Leeds ayaa kulankii Febraayo ee sanadkan looga badiyay 6-0 wax yar ka hor inta aan la ceerin tababarihii hore ee Marcelo Bielsa bishii February. Kooxda ku dheesha maaliyadda cadaanka ah ayaan ka badin Liverpool 12 isku day oo ay isku dayeen tartamada oo dhan. Barbaro waxa ay natiijo fiican u noqon doontaa kooxda martida ah kuwaas oo soo dhaweyn doona Bournemouth toddobaadka soo socda. Kulan oo Marsch u arki doona in ay ku qasban yihiin in ay badiyaan.